sarkaalka la yiraahdo Mubaarak Maxamed Xaaji Mahdi Ducaale oo ka tirsan ciidamada sirdoonka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna sarkaal sare oo laba xidigla ah waxa laga sheegayo haba yaraatee inaanu waxba ka qabin uu jirahaan fayow yahay bad qabo hal shay oo loo geystay ana aanu jirin alxamdulilaahi rabbil caalamiin wal caaqibatu lil muttaqiin wala cudwaana illaa cala adh-dhaalimiin وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إلهي بمهضله مركز ميل كستون جوجنا. الحمد لله رب العالمين. مرلباد waxaan u mahadnaqayaa bahda saxaafadda iyo odayaasha halkan agteeda fadhiya aad iyo aad baad mahadsantihiin. Intaa ka bacdi halka waxaan maanta shirkiraayad ugu qabanaynaa oo na soo kiciyay war been abuura oo bariyahan la isla dhexmarayay oo bulshadii in sarkaalka la yiraahdo Mubaarak Maxamed Xaaji Mahdi Ducaale oo ka tirsan ciidamada sirdoonka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna sarkaal sare oo laba xidigla ah waxa laga sheegayo haba yaraatee inaanu waxba ka qabin uu jirahaan fayow yahay bad qabo hal shay oo loo geystay ana aanu jirin ummadana in waxaasoo kale la dhexmarayaa waa mid gaf ah oo aakhiradeenna aan wanaagsanayn ilaahay ka baqaaleena dadka waxaan ka shaqeynaya walaalayaal hawsha anaga galay aniga iyo wasiirka iyo caaqilka iyo aabihii waxaan u tagnay khamiistii baan u tagnay isagoo iska fadhiya oo xeradiisa discipliin u fadhiya ayaan u tagnay waxaan u tagnay saaka haddana isagoo sidiisii u fadhiyaan u tagnay waa mar labaadan u tagno dawladda iyo sirdoonka iyo cidda haysatana waanu ka wada hadalnay dhawaanna waa la soo dayn doonaa haddii alla yidhaahdo markay hawshooda sharci ka dhammaystaan waxaan isla garannay in dhawaan la soo daayo insha allahu tacaala waxaanu dadka u sheegaynaa oonu ka saaraynaa beentii loo sheegay been fakatay malaha runnimo gaadhaa loodhan jiray iminka miidiyuun baa la mariyey beenta annaguna runtii miidiyaanu marinaynaa runtii baanu miidiyaa marinaynaa walaalayaal dowladda Soomaaliland iyo ciidanka sirdoonka qaranka iyo jaranka iyo ciddii lagu eedeeyayba waa ka bari wax alla waxay u geysteen inanka yaga ma jiro anigoo ku hadlaya afka Maxamed Xaaji Mahdi Ducaale iyo qoyskiisaba waxaan ummadda u sheegayaa inaanay arrintaasi jirin ciddii ujeeddo gaara leh haddaba ee dawladda wax doonaysa inay wax ku tidhaahdaa waxaan leeyahay biciid kale eriyadaan leeyahay oo carruurta yaryar iyo inamada shaqaalaha ee dawladda ka mid ah ee qarankoodii la jooga iyaga iyo qarankooda ha isku dirinaan leenahay adeer meeshan qaran baan nahay qaranka Soomaaliland baan nahay in alla intan meesha joogtaa qaranka u shaqaysaa haddii ninba dhinac uu ka soo galaba ninba dhinac uu ka soo gala sidaa laashigeedu waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad u gaarsiiya halkii la gaarsiiyo meel ka fog gaarsiiya